koonfur galbeed wax leeyahay maamulka koonfur galbeed oo anagaba aan ka mid nahay ku jirno waxaan leeyahay koonfur galbeed waxaan la hadlaa madaxweyne Cabdi Casiis Laftagareen hadduu hawiye aragsan yahay qurac joomaan ka fadhina anaga maamulka wala aan ku leenahay haddaad hawiye aragsanta anagana waa ku aragnay raxween anaga qola aanan ku jirin maba jirtaba walaalow dhulkaan wuxuu nagu deeqaa deganaasho inaan wada degno xibintaan lahayn oo hawiye uu lahay Laftagaranow halkaas ku soo muuji hadda soo muujin waysid waa qad cagaaran waay ma yeelayno hawiyaha anaga xeen daab aawnahay raxweyntu waa ku jirnaa ciidan ku jirno malahan qurac joomo waa degnaa maamul koonfur galbeed waa ka mid nahay walaaladeen degan gobolka Shabeellaha hoos xuquuqda ay leeyihiin Cabdi Casiis Laftagareen haddaan soo dhiibin waa qad cagaaran annaga beesha jijeel anoo ku hadlaayo wax aan qaadan doona ma jirto waa ku hor gudboonahay qurac joomaan ka soo bilaabina ilaa xamraan u keenina wabillahi tawfiiq koonfur galbeed hadduu madaxweyne yahay iyo haddii golo wasiir yihiin iyo haddii golo baarlamaan yihiinba waxaan rabaa inaan ku hormaro koonfur galbeed waxaan leeyahay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliyeed sidii hor loo sheegayba meeshu waa state-kana qabaa'il ka kooban yahay qabaa'ilahana waxay isku darsadeen muddooyinkan Soomaaliya waa 4.5 afar beelood iyo bara la dhahay waxaan qiyaasayaa sida ragii ugu horeeyay uu yiri ama nabadoonkaba u sheegayay nidaamka ama dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ku qoran awood qaybsiga madaxweyne ku xigeen iyo ra'iisul baarlamaan oo ay kala leeyihiin saddex beelood ugu waaweyn waxaanu sheegayaa marka madaxweyne adiga iyo maamulkaada golaha wasiirada iyo baarlamaankaaga madaxweyne ku xigeen waxa iska leed beesha halkaan fadhido hawiyo walaalow macaan dawladdii ka horeysay ee Sheekh Shariif Aadan iyo adigaba Sheekh Xasan iyo adigaba waa laasheen madaxweyne ku xigeenkii ee beesha hawiye lahayd waa laasheen meel dheer baad ku turteen ma naqaan midinka ku tashtay oo yiri hawiyayaan la keenin meeshaas ma annaga si kala oo ishahaysan oo qaabdara kala dhex muuqata nagu aragteen ma fahmi karno walaalow waxaan rabnaa waatan beelweynta hawiye ee koonfur galbeed degaysay qaasatan gobolka Shabeellaha hoose waxa halkan ku shirsan waa maamulkii iyo odayaashii iyo dhaqankii degmada Afgooye ee beelweynta hawiye warka aan leenahay hawiye koonfur galbeed meeshu ka joogo warkaas waa rimiya waan isla qabaa walaalow waxaan rabnaa adiga iyo maamulka ka hooseeya golaha wasiirada iyo baarlamaankaba si degdeg inaan u helay madaxweyne ku xigeenka anigana keensan adiga noo keenmaysid waxaa ka mid ah nimanka nugu metela maamulka koonfur galbeed ee aan macnaha ku dhisnayn marka horeba ee aan diin lagu dhisin inay haddana nagu sii dulmiyaan wixii ay shalay ku dhiseen diin la'aanta iyo dadnimo xumadaahi waa wax aad iyo aad u xun sidaas darteed waxaan leeyahay war ka soo cararow dadkiina wax la qaybsada haddaan rabnaa inaan isna mid aad ka qayb noqotiin oo qurux badan oo qiiman inaan isna rabnaa ka imaado waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo maalin dhaweyta waxaan meeshaan aan miidiyahan ka dhegaysanayay dadku hadday meel isugu dadku markay meel isugu yimaadeen waa bini'aadankana waxaad moodaa xoogaa gaf baa ka dhaca khaladna way sameeyaan nin waxaan arkaya maalin dhaweyta miidiyaha aangalka muxuu ahaa ishaga ka dhaadhaajinaya hawiye ka dhaadhaajina waan u arkay inuu dhaadhaajinayo runtii annagu inaan cid wax u dhinno ma rabno dadka nala deriska ah nala deegaanka ah nala dadnimada nala wadaaga annagu inaan wax u dhinno ma rabno inaan wax ka sheegnana ma rabno inaan maxay ishagan war xumoonana ma rabno masiirkeen hawiye ee aan ku leenahay maamulkaas koonfur galbeed ayaan waxaan rabnay
wixii naga maqan inaan doonno wixii naga khaldan inaan sheegno laakiin inaan cid kale ku dhinno anagu umaanaan imaan isugumana imaan waxaan maqlaayay meesha hore inuu ka saxay laakiin meeshii dambe oo wuxuuga dheelay oo uu yidhi hawiye waxay dhigtaan isbaaro waxay kufsadaan naagaha waxay saas yeelaan halkaas inuu ka bixiyey waan arkay waan maqlay waan u jeeday dad waad dhageysateen waxaan kaloon arkay inuu yidhi ii sheegeen ninka annagoo aan u naqaano qabiila kala goyska irxan kala goyska sixuuxuuqa qofka sixuuxu sheega cabdicasiis ibraahim lafta gareen inuu dhahayo waa barofesor aqoon-yahan ah mideeyey dadka maamulay mas-uuliyadda ka muuqata inuu yidhahna waan arkayna intaasoo dhan markaan isku darna waxaa noo soo baxday inuu asiga hawiye nacayb ku jiray boogihii aan diidayna inuu findhiyey waxaan leenahay oon qabiilooyinka nala degan aan uga digaynaa annagu qofna uma soconno qofnana uma jeedno masiirkeenna inaan ka hadallaan rabnaa maamul xuma nagulahay inaan diidnaan rabnaa miisaanka meesha aan ku lahayn ee nagala saaray inaan ka degnaan rabnaa hon meesha aan ku lahayn aan ka fulnaan rabnaa waxaan leenahay dadku in lees ixtiraamo lees xaq dhowro aan wax layska sheegin xumaanta iyo xasidnimada iyo xiqdiga dadka ka hadlaya ugaasada sheegtaahi maanta waxaan leeyahay warkaas raaligelin ha ka bixiyaano bolojes ha ka bixiyaano annagu mooryaan maahin isbaara ma dhiganno naagaha ma kufsanno waxaan nahay dadkii aad ku soo degteen waladiina awow kuwa idin soo dumaya deegaanka idin dejiyey idin keenay afgooye iyo gobolka shabeellada hoose idinku hayay idinkuna turay idiina xaq dhowray marnana aadna ka sheegeen aan dadkaasaan nahay annagu haddana idin darsanana waayo waxa annaga aan hadda uga hadlayno haddii wixii aan isku darsanay ayaga ay diideenna annaguna dawladnimadooda waa diidnay dadka noogu joray oo noogu matalayana baaqaan u dirnay 3 maalmood haddii ku yimaadeen wixii jooga waa joogaan wixii aan joogin wax hawiye ka tirsan ama koonfur galbeed u matala ama u shaqeeya inaysan ahayn baaqaan maanta bayaankeena uu ku taabsan yahay kuna cadeyn doonaa haddii ilaahay yiraahdo wasalaam calaykum iyo mirifle iyo hawiye saddexda xibnood oo ugu waaweynaay dawladdaas koonfur galbeed ay ku dhisneed mid ka mid ah oo ah beelaha hawiye oo ku xaqiran ahna inay intaan iskugu timaado iyo in kasii badan iyo in kasii badanba waxa ay tahay mirifle waxay haystaan madaxtinimadii dawladda koonfur galbeed nimanka la yiraahdo digilna waxay haystaan gudoomiyihii baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenkii koonfur galbeed ee beesha hawiye ay lahayd 6 sano kor ayaa loo hayaa waxa kor loogu haayana waa yas iyo macnaha iyo cunsuriyad koonfur galbeed ay curusay ay wado ilaa hadda ay u taagan tahay siyaasaduna sideeda waxa waaye haddii uusan qof wax ka dhaha ayda lahayn si waxa ugu dambayso sida oo nabadoon hore u sheego kala godka unfada aan ku jirnay noogu soo dabagaleen aynu kugu imaadaan waana noogu yimideen waana aragnay waxaan rabnaa marka haddii ilaahay yiraahdo annagu koonfur galbeed ilaa xaqeena aan ka helno ama ay xoog ay nagu maquuliso niman xaq darayaal ay naga dhigto waa wadi doonaa shirarkan shirkiraad waa wadi doonaa hawiye dad la quursado maaha dad macnaha waxooda xaqooda la haysan kara ma aha annagu waxaan leenahay marka waxa aan ka hadlaynaa waa af annagu gacan ka hadli mayno afaan xaqeena inaan ku doonnaa xaq u leenahay inta aan af wax ku raadi karna oo xalkeena aan ku heli karna in aanaan wadnaan raalli ka nahay haddii ay nala gashay inaan gacan ka hadalnana cid aan ugu hibaysan doonno ma laha xaqeena horreeya uu sheegay in meel la isugu yimaado ummad hadday meel ku dhaqan tahay inay meel isugu yimaadaan ay tashadaan ay aayahooda ka tashadaan waa wax muhiima oo faralna ku ah deegaanada aan joognana annaga ugu wakiila dadka annaga aan ka dhalanay marka waxaan ku raacsannahay in fadhigan la isugu yimid in danaheennii gobolka iyo deegaankii south west oo idin wixii xaqa aan ku lahayn inaan ka la'nahay xaqeennii nala duudsiiyey ilaa iyo haddana wax naloo ogol yahay aysan jirin mar walba ay wax yimaadaanna in xusulka laysu dhigaayo taaka ay tahay oo meel walba la leeyahay meeshaan hawiye muxuu ku leeyahay maxaa u yaalla hawiyena asaa meesha is dhigoo meeshaba deegaanka ninka loogu yimi hawiye u ahay deegaanadan oo dhan
marka insha Allah kulankan iyo kulanka weyn iyo intaan in ka badan aan rajaynayna inaan isugu nimaan wax alla qofkii maqanna in la raadiyo dadka maqanna naloo keeno wax alla wixii go'aan ahoo beelaha ay gaaraanna in si wada jira gacanta kor loogu qaado la wada qabsado iyadoon dad deegaana iyo nin kale iyo qof shakhsiya si khaas ah wax looga sheegayn oo ay taagan tahay arrintu arrin maamulka maamul la wada dhisto ahay wixii lagu wada dhistayna waa laga la'yahay in laga helo wixii lagu wada dhistay oo la isugu wada yimid in laga helo iyo in laga waayo waxba idiima hayno labada mid in laga helo wadadii lagu heli lahayna in lagu sii socdo oo shirarkan la sii badiyo dadkii kale naga maqan iyo qabaa'ilka maqan iyo la keeno marka annaga hawlaheena ay saas noogu dhamaadaan xataa inaan raadino qabaa'iladii deegaanka ahay wixii annaga nagu ra'yiya inaan raadino wixii aan jiidi karna aan soo jiidno wixii ra'yigeena ka duwanaadan aan dhahna aan u yeerno ayagana aan niraan maxaa ra'yigeena ku diiday waxaas iyo waxaas waxaan ku wajahana waan ka hadlaynaa waxay tahay maamulka markii hore baadilka ahaa haddana baadil isagoo dadkii lagu sii baadilayo lagu xumaynayo lagu sii isirsafaynayo lagu sii dulminayo waxaan leenahay ka jooga haddaad ka joogi weydaan wixii ka yimaado idin lama lihin idinla qaybsan mayno mas-uuliyaddeeda adinkaa leh adinkaa maanta haya waa idinkaga digaynaa waxaan leenahay baadil kastuu yahay dad baa ku xisaabtamay waxay ugu xisaabtameen wixii ay magac ula bixeen 4.5 oo ilaahay ba xarrimay markii horeba ha ahaatee balance loo sameeyay madaxweyne ku xigeen ra'iisul baarlamaan wixii meesha looga soo wax lagu soo kala qaatay ahay wixii lagu soo kala qaatay laba waa shaqaynaysaa 6 sano waxa kor loo hayaa xubintii hawiye ku lahaa waxa loogu hayaana waxay tahay dulmi iyo cunsuriyad iyo waxa aan dareemayno iyo waxa aan maanta isaga nimid waa uga digaynaa arrintaas oo barashada ka bixiyeen sida ugu dhaqsaha badan waxa uga qabteen 10 jeer oo hadda ka horeysa la dalba dadka meesha mas'uuliyadda ka sheegta inaba ma aysan dhicin inay soo goob fariistaan waxaan ugu baaqaynaa inay soo goob fariistaan